waxaa marti ku ah barnaamijkeena dalka la yiraahdo Cuba. Waa dal ka kooban jasiirado isla markaana xorriyad aad ugu yar tahay. Waa dal cajiib ah marka la eego dhanka waxbarashada, waana mid ku caan ah dhagarta kala dhexeysa dalka Mareykanka. Dalka Cuba wuxuu dhacaa mandiqada waqooyi badda Caribbean-ka taasoo kulmisa badda Caribbean-ka, gacanka Mexico iyo badweynta Atlantic. waqooyiga waxaa kaga aadan dalka jasiiradaha ee Bahamas, waqooyi galbeedna waxaa ka xiga dalka Mareykanka. bariga waxaa kaga aadan Haiti, galbeedkana waxaa ka xiga Mexico, halka koonfurta ay ka xigaan Jamaica iyo jasiiradaha Cayman. wuxuu ka kooban yahay 4,000 oo jasiiradood, kuwaasoo inta badan ah jasiirado aad u yaryar oo ku hareeraysan jasiiradda weyn ee dalka. badka Cuba waa in ka badan 100,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. badkani ayaana ka dhiga dalka 104 ee ugu dhulka weyn caalamka. markii aan eegno tirakoobkii la sameeyay 2002, tirada dadka dalkani waa 11 milyan, wuxuuna tirakoobkan sii cadeynayaa inay isku dhow yihiin tirada ragga iyo dumarka. sidoo kale tirakoobkan wuxuu sheegayaa in ka badan 7 milyan inay yihiin dadka caddaanka ah, halka dadka madow lagu sheego in ka badan 1 milyan. waxaana tirada dadka la yiraahdo Mestizo lagu sheegaa wax ka badan 2 milyan. intii u dhaxaysay sanadkii 1882 ilaa 1898 waxaa Cuba u soo hijrooday in ka badan 500,000 oo Isbaanish ah. sidoo kalena intii u dhaxaysay 1899 ilaa 1923 waxaa Cuba u soo hijrooday 750,000 oo Isbaanish ah. luqadda rasmiga ee dalkanna waa Spanish. dalka Cuba dadkiisu 65% waa Christian, 24% waa kuwa aan haysan wax diin ah, halka 11% ay haystaan diimaha kale, waana dal ay aad ugu yareen dadka muslimiinta ah. Cuba waa meel ka mid ah meelihii uu sahmiyay Christopher Columbus, waana shakhsiga ugu baaqay inay qabsato boqortooyada Ingiriiska. waxaa ku noolaa Cuba inta uusan tagin Christopher dadka la yiraahdo Taino, kuwaasoo ah dadka asalka ee mandiqada Caribbean-ka iyo galbeedka America ee Florida. magaca dalkani wuxuu ka yimid luqad Tainoga, waxaana la jeedaa dhulkii hodanka ahaa. Coca-Cola laba dal ayaa lagu ogolaa in la cabo ama la iibsado, labadaas dalna waxay kala yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo dalka Cuba. waxaa ka mid ah waxyaabaha uu caanka ku yahay dalkan uuna soo saaro sigaarka waaweyn ee la yiraahdo Cubanka. waxaana xusud mudan intuusan joojin Mareykanka ganacsiga kala dhexeeya dalka Cuba in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka John Kennedy uu Cuba ka soo iibsaday 1,200 xabo oo sigaarka Cubanka ah. Cuba waa dalka labaad ee dhaqaatiirta ugu badan caalamka marka la eego dadka dhaqaatiirta ah, dalka koowaadna waa Qatar. sanad walba dalka Cuba wuxuu dhaqaatiir u diraa qaar ka mid ah dalalka caalamka sida dalka Brazil. waxayna sanadkii 2018 dalka Kenya u dirtay Cuba 100 dhakhtar oo gacan ka geysanaya taageerada daryeelka caafimaadka. waxaa la sheegaa in dadka Cuba 99% waxna aqrin karaan waxna qori karaan, laakiin celcelisaan mishaarka billaha ee dalkani waa $20 oo kaliya. qofkii booqda dalka Cuba waxa uu ismoodaa sidii qof daawanaya filim qadiimi oo kale. baabuurta Cuba ayaan ah kuwii hore ee la isticmaali jiray, waana dal ku liita xorriyadda. wariyaal badan ayaa jeelka ku jira, waxaana dadka dalkani loo ogolaaday inay qaataan telefoon gacanta 2008.